الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين دمانتينا مeel kasta adduunka ka joogtiin waxaad ila wanaagsan ahi videogan waxa waaye video xamaasadiis iyo wax walba wato waaye videogan anaga intaan soo fadhiisanin ka hor wallahi been meedin sheegay ani laba rakac soo dugti maxmuud laba rakac soo dugti gacanteedana waxa ku jiro kitaabka ilaahay wax walba video aan ka sheegayo hadda horumarinaa waan dhaaranaa kitaabkan ku dhaaranaa wax walba si ilaahay la ogyahay aan u sheegaa midda kale yani maaha waa ogahay social media inaysan maxkamad ahayn laakiin arinta waxay gaartay heer meeshii ugu dambeysay sax ma fahmaysaa sax marka ma ahayn in meeshan la keeno laakiin sidii dad badanaa ku wareeray arintan yani dad badanaa falanqeeyey dad badanaa say rabaan yani nin walba fikradiisa kusoo bixiyey sidaa loo caddeeyo annagana wixii ana ognahay ilaahana la og maalinta qiyaamana waa la imaanaa maalin oo yowma laa yanfac maalun walaa banuun waa la imaanaa oo adi iyo adoo qaawan dhididkaaga nin walba sidii ilaah uumay waa la imaanaa haddaa yacni oo annaga wax qaldan sheegno siday wax u dhaceen aanan u sheegin maalinta qiyaama imaanee kitaabka waa kana maxmuud wallaahi billaahi tallaahi ilaaha i jeedo hadalka aan sheegayo haddii hal been aan ku daro maalinta qiyaama aa laysoo istaajinaa ilaahayna waa ii jeedaa ilaahow kitaabkaa ku dhaaranooyaa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxaan sheegaya waa run adigana waxaa ku dhaaranaa gacanteeda waa xoogaa waa arki kartiin waxaa ku dhaaranaa waxaan sheegaya hal oo wax oo beena inaana ku dareenin kitaabka ilaaha qur-aanka kariimka waa arkaysiin marka kitaabkanna inta video aan dhammaynayno intaas noo yaalaa wax beenaan sheeg marabna anaga horta sheekadan waa la socotiin dhammaantiina qof aniga xaaskayga ahayd sidoo kale waxaan u haystay in ciyaal ay dhalin sidoo kalena madax bannaan tahay arrintan markii ay social media saas soo gashay aniga saa idin sheegi waaye marka horena saa idin caddeeyo waaye gabadhan marka hore aan shukaansan jirin aan isbarani wax ay ii sheegtay ciyaal inay leedahay nin ay kala tageen ama aasqabi ma jiro ilaahan ku dhaarta ilaahana ii jeedo sidoo kale waxaan arkayay dad badan dhahayaan kamaal gabadhan waa sixradi horta qof ilaahay ku xiran sidoo kale ilaahay yaqaano sixir iyo wax mala awaal ah wallahi inaan isku dhaqaaqaynin aan hubaa aniga kaba soo qaad qof yani wax iska dhaha waay xaqiiqada may horta waxayna ka dhahaa taas sixirka haddii aas noqdo ma hadaas ma ku saabsan jahatu zuur yani qof waxa ogeyn qiila waqaala qof aa soo dhahay ama qof aa soo tuhmay qiila waqaala yani ahadiista iyo kutubkana wuxuu sheegay waa ogtahay si fiican waqaala ha ana ma kula xisaabtamahay ninkan ma kula xisaabtamahay yani adi ilaahay sax waa marka su'aasha waxay taagan tahay ma gabadhan kamaalow adiga ma ogeed oo inay xaas tahay ama lasoo furay ama ilma ay leedahay ma ogeed wallaahi oo bilaahi oo tallaahi aniga ma ogeen sidoo kale sheekadan hadda in aan lasoo fadhiisto anoo wax walba xaqiiqsaday waxay noqotay in anaga raadin xogyaal badan rasmi ah haddii ay noqoto gabadha familkeeda baryahan dhan anaga wallaahi been meedin sheegay ma seexanin ani maxmuudna xali dhan ma seexanin anaga waxaa raadinayna keliya xog rasmi ah xog xaqiiqi ah waxa la noo sheegay kulley waxaa la lahay 100 qof been ma isku raaci karto masti hal eray ma isku raaci karaan hal eray ma isku raaci karaan marka wax walbo ku saabsan xogta aan helnay maxmuuda ka sheekeen doono sidoo kale anigana wixii hadal gadaal aan ka dhigi doonaa marka maxmuud aa u wareejinaa wallahi been midin sheegay video aan duuran balakoonka joognaa dhaxanta dhacayso wallahi ma malaysan kartid sababtoo gudaha mugdi waaye nalkiina waa naga halaabay marka hadda aa rabaa maxmuud inaan u wareejiyo waxa ilaah la ogyahay as ogyahayna anigana as ii sheegay aan ku raace asiga ka waramaayo soo dhow maxmuud soomaaliyeed meel walba joogto dhammaantiin way salaamayaan horta arrintan cirka isku shareeraysay dad badan يعني سومالي oo dhanba leh way ka soo hadashay xoogaa waxa waa dhaxan zaid ah jirtay xoogaa jaakada iska soo bedelay horta sidoo ilaahay ila ogyahay arinta uga hadlaaya kamaalna yani waa la hadli karay arinta waxa sameeyay horta anaa sameeyay xiriira waxaan sameeyay inaa yani dadka ayada relative-keeda ah inaa xiriir la sameeyo oo yani raadiyo habeenkii aana seexanin marka kamaala u bandhigay
marka kamaal waxaan dhahay arrintan saan loogu hadlooyo marka ma adina raadisid information marka wuxuu dhahay gabar ani yacni idhahoyso oo dhaariyey oo ani idhahoyso yacni ma qabo yacni mana lee qabo ciyaalna ma dhalin yacni gabar waay waa og tahay cidlamaa ugu tagaa way dhahay marka ani marka danta waxay ugu khasabtay inaan ani raadiyo keligay marka ani iyo waa badneen ani iyo marka yar kaloo oo walaalkay maxamed la dhahay isna waa raadinayay dhinaciisu ka raadinayay marka information wax badana istutusinay dad marka Facebook dad ayada u dhadhow Facebook dad mar hore isla hadashay Facebook waa jira dadka dhan waa arkeen mar dad ayada comment ka bixisay dadkaasaa raadiyey mistaqaaniinaan dhahay ilaahay ma kula ogyahay dad ani waxaa raadsanaya oo mas-uuliyiin ah marka ilaahay ma kula ogyahay wuxuu dhahay ilaahay waa ila ogyahay haddaa rabtid waa i sheegi kartaa yacni wax la qarinayo ma aha hani inay wax dhashay ciyaal ay leedahay wax dhan waa jiraan haddana waa ka soo tegey nin kaloo waxaa helay adeer asna la dhahay Ismaaciil Afro soo ii sheegay nin wanaagsan ah si wanaagsan wax ii fahansiiyey gurigiisa ku soo kortay gurigiisa oo yacni ay ku soo aroostay ay ii sheegay aan arrintii waxa iila sii noqonaysa hurdada waa iga sii tagaysay ma fahantay ilaa hadda ma seexan sidii xalay ilaa hadda marka arrintii waa yacni arrintii meeshii horta xaqiiqada meeshii ka soo baxaysay dadka dhan been haddana walaasheeda la hadlay way ii sheegtay eedda kalaa jirta ayadana Canada joogto oo ayada habareerteed farxiimiya farxiin la dhahayo maleena farxiimaha habareerteed waa la hadashay adna ana la hadlay farxiya la hadlay waxaa la hadlay eeddo xumburo in la dhahayo maleena ayada cambaro la hadlay wixii dhan qof yacni hadduu ciyaalnimadaada ku yaqaanay xitaa waxaa ku dhedheelaysu sheegaya ma fahantay marka wax caqliga galaya la rabaa marka markii dambe arrintii markaa saas u ogaaday ee caddaatay kamaala marka waxaan dhahay niyo horta wallaahi waa kaa shakiyey ana waxaas dhahay kamaal arrinta misla ogyihiin wallaahi oo bilaahi habeenaa kurbaysna inaan isla ogyahay maxamuud ma waa ogaaday markii iisina aniga marka maya ilma dhashiisoo kale xarig ku xiran yahay aniga inaan guursa maxamuud aqliya loo baahan yahay ma sax waaye laakiin haddana waa raadiyey haddana yacni dadkii kale familigii kale waa isoo xiriiriyeen waa isla hadalnay dhowr mara isla hadalnay yacni kool dheer waqti dheer waa wada hadalnay wax waa isfahansiinay markii dambe xitaa an waxaa u fikiray xoogaa maskax ahaan maa loo haystaa markii dambe arrintii dhan markaa soo ogaaday marka waxaan dhahay niyow kamaalow saanaa jirto arrinta dhanna waatana haddaa adi indhaha istiraysid ma sheegi karo fahme waxa familka hooyada aabbaha ku dhaheen adeer iyo dadkii oo YouTube soo lasoo fadhiisanayo arrintiina saan ay tahay cirka isku shareeraysay arrintan fiiri arrintii marka kamaalaa ku soo wareejiyey kamaalkii marka waa fahmay kamaalkii ama kaaga noqotay waay marka ani yacni waay isaan u sameynaya uu bilaabay markii inuu dhaho ani igu sameynaya waay marka ayadii marka waa la xiriirnay marka arrintani waxay tagtay serious ma fahmay dhaar ay tagtay wax walbo yacni magaca ilaahay ka weyn dhaaray tagtay arrintii marka xaqiiqadii wixii aa soo ogaaday informationkeeda hadda wax ayaa la sheegi karin yacni xaqiiqooyinka dhan waxaa jirto wax oo family issue ah oo weliba top secret ah markaa soo ogaaday ayadana aa la socodsiiyey ay fahantay ee markii dambe yacni alxamdulillaah afkeeda ka qaratay ma fahantay marka kamaalna markaas meeshaas ku qancay marka arrinta kamaalaan u sheegay arrintii marka ayada gabadhii afkeeda ku qaratay marka kamaalaa marka waxaan dhahay arrinta ka hadal marka inaad ka hadashid ay sheegtid waaye wixii bayaan yacni wixii oo aa aragtay ilaah kula og yahay sax waay aniga waxaan qarin ma sababtoo hadda video aan duuban daqiiqadooyin xitaa nus saac madama daqiiqadooyin kadib isla markii video cadeynta waan soo fadhiisay wax la qarinayo ma jiro laakiin markii hore qofka adiga xaaskaaga haddii isku dhaho aniga ilmo ma dhalin weligii wax ma soo marin waa aamineen sax ilaa qofkan markaa shukaansiisa wejiga muu qoran maxamuud haddana midda kale dadka fahansiinaya jirto marka la dhahayo qofkan yacni hiblaayo wasaanaa ku samaysay yacni ma dhihi karo yani adoo qof weyn ayna dhexdeedna yani ma wanaagsaneen laakiin si wanaagsan wax waa loo sheegi karay laakiin yacni waay qofkan
hadduu dhihi lahay waxayse babligu soo dhigtay arooska ma qarsaneen nikaaxa ma qarsaneen arrintaas shaki waa dhalin kartaa ase xitaa shaki waa ku dhalin kartaa yani taas inaa xisaabta gelisay ahayd qofkan waa shakin karaa caddeen tus wax itus itaabsiyaa jirto caddeen tus waatana caddeen laakiin haddaa dhaho yani qofkan asaa dhalay asigiina ku dhahoy ma dhalin yani confusaa noqonaya ma fahantay marka arrintana waxaa fiican markay xeerkan oo kale marayso oo ay marayso itusi oo itaabsii marka ma la rabo inaad dhahdid yani ma loo baahneen marka adna yani waa kuu garaabayaa yani wax yani oo ciyaal qof yani ciyaal dafirayso yani xoogaa waxa noqonaya wax la yaab leh dadka dhan ay la yaabayaan oo qof bini aadan samaynayn kolley wixii ku kalifay annaga ma sheegi karno laakiin xaqiiqada markaa soo ogaanay yani wax laga talaabsan kara maaha wax laga socon kara maaha wax in dadka loo bayaanay u baahanna waaye sidaa la ajligeeda u soo fadhiisanay oo arrinta sida saxda ee u jirto oo ani ilaahay ila ogyahay ninkana ilaah ula ogyahay marka idinla soo gudbinay marka intaas wixii ka dambeeyo marka ani wax la dhihi kara ani ma aqaani marka kamaalay u taalaa horta intaas waxay ka dambeeyey maxamuud dad badanaas la hadlay dad badanaa wax uu caddeeyey ilaa haddana waa isla xiriirayna ha aniga laakiin hal qof aan la hadlay hawreerteed maama hawreerteed maamadaas maasha Allah si fiican ay wax walba iigu bayaanisay maamadaas wax walba markay ii sheegtay waxaan xaqiiqsaday marka hore kow aan xaqiiqsaday ilmaha in ay hani dhashay markii aan la tagina kadib oo dhaar iyo kitaab ay isla gaartay waxay ii caddaysay ilmaha in ayada ay dhashay kadib maamada aan weydiiyey sababtoo ay qof ciyaalkiisa ingiriisi ka galay waxaa leeyahay qofkan si maskaxiya ma loo haystaa wax ma haysto marka maamadaan weydiiyey maamada waxaan leeyahay maxaa ku kalifi karo in ay dafirto ciyaalkeeda maamada waxay dhahday wallaahi ani ma ogay dhahday laakiin waxaa huba ay dhahday inay ciyaalka ayada dhashay waana laga yaabaa ay dhahday marar badan ninkaas in ay khilaafkooda badnaado ani si ayaday dhahday way hal been ku daray family qusaysa inay sheegana ma fiicnaan laakiin maamada si ii sheegtay waa aniga arrintaas waa gaabsanaa laakiin arrinta muhiimadda waxa waaye ciyaalka ma dhahay aan hani ninkaas xariga ku xiran ninkaas waa kala tagee ma dhahay wax walba kaas gadaal aska imaana ana xitaa cadeen muu hay taas in asqaw wali in ay kala tageen cadeen muu hay laakiin waxaan cadeen u helay in ciyaalka ayada ay dhashay kulley wax walba qoran waa dhaca wax walbana adduunka waa laga arkaa dad badan aan arkay dhahayeen wax walba adduunka waa ka arkay nin rag oo uur yeeshtay oo ilmo laga soo jiiday leen la arkaynin saxna waa taas wax walba adduunka waa ka dhaca arintana social media ay soo gashay social media waxay soo galaan wax qarsan ma aha anigana hal mid aan qoldanahay hal mid aan gelin ka bixinaa midaas oo in arintan markii koow ay cusbeed in aan rumaysan waayo ma ku indhaadaytay ma dadka yani runta yani waa ku indhaadayga laakiin maxamuud ana ku imaadi naagta aan qabto cadeen la'aan waxaan ku dhahay ana qabo ma aamini adi cadeen u baahan tahay maxamuud oo naagtadan ku dhahaysid may qalad u dhacaa kulubna aadan qadaa wa khayru khataa'un atawaabun ano khaladkaas ogaan u sameeynin araggan inta ka bixina khalad waa gali sababtoo haddii aniga dambi waxaas igu ahaan lahay anoo og aan aamusi lahay wallaahi ilaahay il og aniga ma ogeen haddaan ogaan lahay qofka aamusay ma ihi arrinkan wallaahi baa ma idin sheegay familkayga aniga marar badan ay dhaheen kamaal arrintan sax waaye ama sixran tahay adi ama lagu sixir ama lagu taabto wallaahi marar badan ay lahay ma ana waxa diida wax qiila waqaala yani waxaas ama tahay waxa og tahay ya aad hubaal iyo xaqiiqi iyo marqaati u haysan yani adna aad hubin mala sheego waxa noqonaya xan mafahmay ilaahan ku xisaabtamay hadi ma ogid xaaladda qofku waxa ogaan kara dhex taagan mafahmay dad badan waa arkay wata ilaahay dambigan Allah dhamaanteen marka waxa waaye ilaahayna waxa waa qafuur raxiim waaye laakiin qof hada khalad ka gashay ama wuxuu ahaan ku tilmaantay marka qofkaas inaad u tagtay asi oo ogolaasho oo ku cafiyo moogiyo si kale yani ilaahay ku cafinayo ilaahay tiisu ka cafin karaa qafuur raxiim marka arinta meeshiisa ku xigta marka kamaal ay hadda kula gudboon dadkana u sheegi kartaa horta aniga arintan ilmaha horta hani waa dhashay xaqiiq way taas ayadana afkeeda waa ka qiratay sababta ay u inkirtay
waxaas ilaa hadda aniga ma ogi. dad badan ayaa isdhahay Kamaal gabadhan xaaskayga waa isdhahay hadda maxaa samayn doonaa, hadda maxaa la gudboon. ma rabi in social media aan ka sheego wixii aniga samayn doono. hadda kadib waxaan samayn doono waxaas noqonaa waxyaabo aniga private ii ah. wixii ila gudboon diinta ku saabsan ama diinta ku salaysan xaqana aan samayn doonaa. ma rabi social media inaan ka sheego. balan waayo anigana weligay xaqa u istaagaa, weligay qof ma dulmin dooni, weligay wax oo aniga arko inaas khalad yahay maku indha adeegi dooni. sidoo kalena waxan haddii soo baxo hadda hal midaa gudbo Maxamuud, qofkan ciyaalka waa dhaliyaal lahayd mid kale soo yeeri doonto oo private ahaan isoo gaari doonto waxay noqonaa xarig inaas ku xiran yahay ama ku xirneen. wixii aan samayn doonaan ku dhahay markaas diintaas ku salaysan oo fanka dadka ما dad ma yani inta yani inta maxkamad ma aha dad la leeyahay dadka yani family-ga yani wixii la sameeyay lahayd yani aadinta private ahaanay laakiin waxa wala sameeyay insha Allah. arintana sidoo kale dad badan ka soo hadleen taasna ogaan daraa u geesi. haddii aadan wax ogeyn waxaan ka codsanaa walaalkay ama walaashay arintana ka soo hadleen. adoo si wanaagsan wax ugu sheegi kara yani si qaldan ugu soo hadlay sax waa hadaadan yani ka hadli karina reaction-kaaga ka bixi iska dhaaf. waxaan hadda views waaye adduunyo waaye ilbiriqsi waaye sikin waaye waa dhimane isla markii intay kaaga bilaabanay godkay kaaga bilaabanay. sax waa marka waxaan damiirkaaga iyo qofka wixii oo isla markaas soo dhaho yani aad ogeyn hal dhinac inaad soo qaadatid isla markaas oo qofkii ay iyo waxa loo joogo inaad kula dilacdid ma wanaagsan. wax qof weyn samayn kara yani hor Soomaaliyeed waa u badanahay yani waa la isku qaadanaa laakiin ma wanaagsan qofka adoo wax fiican u sheegi kara yani ama iskaga aamusi kara maxaa caynay haddana arintana ma dhex joogtid يعني gurigii waxay ka dhacayaan ma joogtid marka maxaa caynay muxuu ka galabsaday marka wallahi aad ugu xumaa taas laakiin waxa waa caafiya waxa waa maadana waa ku celinaa ilaa dambigeena dhaaf cidii si qaldan u hadashay comment qaldan soo qortay cidii reaction qaldan ka bixisay ilaaha arkayo soo marka aan intaas ugu baxaya كمان نكسي ورجينا إن شاء الله. مركا هذا بدن حام بحشو كلي أنا وحي حقيقة هو أوغاني وحي لقطة وحي حقه وان أوغاني ما نفعنا أنا والله بين بدين شيء علوش وح عنكو خرصنا ما هستي وحن آت أقول حمادي إن أنا اللي يقول تلمع موقف وح أدونك أقول ليذن ما حكم كيس هذا فاهم لهن حكم كيس هذا فاهم لهن والله ممكن تدق لهن يعني ما هذا ويت هل سؤال يعني كفتنا حتى أوقات قفك يعني هادو سحر ساس باوركاس أسرعيه ضدك آمين سن هادو باوركاس سرعيه بيل جيتس كودي سما أنا هذا السحر كوكانسل برا صحوة يعني بيل جيتس أما إسكدافة ضد كان تاجرين تقبله هذا ما السحر كوكانسل مرك عقلي عشقي وحلا فهمه معناه هادو قعمانا وحكو قرطوا الوحي حسابنا عربكم الوحي حسابنا والله أنت بدنا أركي كومنتي إيزو خراي كمال ساس إيساساتها أنا دم بين هستي وإذا عفية وإذا ما فهم سنين وقال درا يعني وقال درا إدي هيسي ما فهم سنين يعني عافية لكن هذا كدي كبارن تجا مرك إن شاء الله كل فيديو نزول على مرو مهم ده هذا الكيجا أما قرانك هذا الكيجا وحسن قناع حد كدي wax social media arintan imaan doono ma jiro wixii diinta ku salaysan wixii xaq ah ani waan ogahay ana xalsanayo sheekada meesha ku dhamaadi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi